ورياضهن هلا وقوم يا حر حرديد وأنا جي الصلاة بتاعي تكفي عندهن أوكي سو أنتي كوساب سنة شمبرتي كويل تشيك يا وين معناينا مرتن بندي بقول نقنايا أنت يشك ذي سحورة يا والدين جوبي والله بالله مدبا موديني شاقي مدبا بري انتو صوعي بيقولوا والله بالله waxaan ku riyooday waseexan kari waayay waxaan arkay anagoona la gubayo markaasaan idhi niman Soomaali badanka naagaha Soomaalidana ku dar iyagana qoom la rogayo la gubayaa tihiin marka taasi waa inta so intan waxaan dib ugu laabanaynaa quraanka waxa idinka tusayaa marka dib waxaan ugu laabanaynaa inta ku saabsan sewing needle yeah ama the eye of a needle marka irbada wax lagu tolo waa arkaysaa maxaa la yidhaahaa godka yar ya dunta laga geliyo maaragtay ya markaad wax tolaysid ya laga geliyo sheekada ku saabsan halkan aan soo dhigay masaaridii hore waa dee qa'dii baynu weli wadnaa micnaynta mar maxaa la yidhahaa farshaxanka sida loo sawiri jiray qa'da marna waa quill chick shimbiruhuna waxay ku saabsan yihiin like I said mar dambaan ka hadli doonaa but needleka irbada iyo godka yar irbada tolka ee dib ugu laabanayna oo de waad maqasheen the eye of the needle baa la idhaahaa ya quraanka ya suurat al-araf ya suurat al-araf 7.40 ya waxaa jirta verse ku taalo oranaysa indeed ya those who deny our verses and are arrogant kuwa anaga diidaynayna maqlaan oo arrogant yeah waa Soomaalidu say tahay marka dadka adduunka badankoodu saas weeyeen laakiin Soomaalida ugu daran oo hadday diidaan sign-ka yaga ya ama waxaanu tusayno ignorant oo diidaan inay aaminaan basically inaad quraanka ku dhaqantid ya the law shariicada inaad ku dhaqantid the gates of heaven will not be open for them baa la yidhi nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of the needle. Camel, yeah? Sheekada waad maqasheen, yeah? oo waxay ku taallaa xitaa Bible-ku iyo the Christian-kuba way ka hadlaan oo waxa la yidhaha Nabi Ciisa wuxuu yidhi marka hore hure cadceedan ka hadlayay ya Maryam Nabi Ciisa hooyadii waxa lagu sawiraa marka farshaxaan la sawirayo cadceed bay leedahay waxay leedahay crown ya halo abayo halo ya tii ya ayaa loo sawiraa cadceeda ya oo waa wixii markay waaqac yihiin markay cad yihiin ya dayaxa marka wax lagu tirinayo way qarsoon yihiin ya ilay mugdigaad jeceshihiin but anyways waxa jira wuxuu yidhi Nabi Ciise wuxuu yidhi ya it's easier inuu geel ya irbada godka yar irbada inuu geel dhex maro ya ayaa ka fudud maalintuu nin xoolo ama maalqabada ah nin xoolo leh uu tago jannada ma fahanteen ilaan waa iimaan darrada laydinku rogayay ya bila iimaanka no faith ayaa laydinku rogayaa layna marka oo waxay ku taala quraankana waxay ku taala suurat al-araf ya araf macnaheeda hadaynu macnayno oo 7th chapter of the Quran araf waxa weeye elevated places ama heights ama waxa weeye a wall a barrier that separates ya kala saarta weeye waa barrier ya marka araf iyo arafat same root bay ka yimaadeen af carabi ahaan ya xajka marka la tagay pilgrimage la sameynayana ayaa la xajayana Arafat soo lama koro halkaas dadku kuma sameeyaan rituals ya oo waa meel sare way soo maaha masaluhuna waa meel sare ma ogtiin horta ma fahanteen ya marka shirk aad ku sameynaysiin intaad meel Sacuudi Carabi la yidhaaho box laydin dhigan box madow baad ku dul mareegaysanaysiin oo energy-giin iyo wixii halkaas ay ku soo dhamaatay laakiin ilaahay wuxuu dadka falay iyo quraankiina dad aaminsan ma tihiin ya waa in maryo la isku qariyaa ya Soomaali maryoolay oo la isdadaa oo la iska dhigaa holy ya laakiin hoosta waa laga qulumay camel Ingiriisi weey
laakiin af Soomaali camo camal bay noqonaysaa yeah beri baan book ku akhriyay oo yidhaaheen af Hebrew camo wax kale ka micno tahay oo xoolay ku saabsan tahay of course waa camal weeyide camalna waxa weeye deed soo maaha waa buuggaadii waxaad soo dhigatay adduunka ayuunbaa akhrino ku raacaya soo maaha Soomaali hala inagu geel baynu naqaanaa geel marna gaalow noqonayaa yaa geelna waa xoolo weeye waxa weeye wealth soo maaha af carabi ahaana waa jamaal yaa jamaalna waa wax qurux badan oo beautiful oo elegant yaa marka dhalaalkii adduunkaad jecelaateen basically yaa camalkiinu waa kaa your deeds are that ma fahanteen marka dib ugu laabta suurat alcaraf yaa carafaadna waxaad ritualka u samaynaysiina dib ugu laabta bas waxaan arkaa dad badan oo walaahi bilaahi aan aqaano 100 jeer baa lagu noqonayaa xajka oo hala dheebaaba loo tagayaayo oo waxa la dad kale isu tusaya waa xajkii baa tagay hadda lacagta qof u baahan oo miskiina oo wadankoodii jooga ayay sanad dhan ku biilin karayaan waa daawada weey soo maaha waa beauty baa la raadinaya istusnimo yaa anyways intaasna waa inta in kala hayaa brito lan kusoo daraya inta war waa idin salaamay